howlgalkan oo muddo saacadaha socday ayaa ugu dambeyntii ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo howlgalkan si gaar u fulinayay ay ku guuleysteen inay soo afjaraan howlgalkaasi ilaa iyo hadda lama oga tirada saxda ah ee howlgalkani ku geeriyootay inkastoo ay indhahaygu qabanayeen tiro meyd ah oo isugu jira haween iyo rag oo dhammaantood ahaayeen dad rayid ah oo xilliga weerarku dhacayay ay ka agdhawaayeen nawaaxiga hotelka Ambassador oo ah halka ay weerarka raxandarada ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Ugusa waxaana dadkii weerarkaasi ku geeriyooday ka mid ahaa 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo kala ah Cabdullaahi Jaamac Kabaweyne iyo Maxamed Guure sidoo kale tirada la soo badbaadiyay ayaa ah 51 qof oo gurmad ka helay ciidamada Niisa iyadoo ay jiraan dhaawacyo soo gaaray dadkii hotelka ku jiray iyo kuwa marayay nawaaxiga hotelka waxaana dadkii weerarka ku dhaawacmay ka mid ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur 4 qof oo ka tirsan maleeshiyada argagixisada ee Ugus oo ka mid ahaa naftii halige isku qarxiyay iridka hore ee Hotel Ambassador qarax kadib waxaa gudaha hotelka galay 3 dable hubeysan oo maleeshiyada al-shabaab ka tirsan oo xilligaasi ku mashquulsanaa inay dilaan dadka hotelka gudaha ku jira hase ahaatee ciidamada amniga ayaa halkaasi durba soo gaaray waxayna meel isugu geeyeen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday oo muddo saacadaha xakameynayay ilaa ay ka qaarijiyaan taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa howlgal kadib u waramay warbaahinta madax iyo shacab isugu jirtana waa la badbaadiyay alxamdulillah inta naga dhimatana Allah u naxariisto dadka la badbaadiyay ilaa ku dhawaad dad 59 qof oo dadka laga badbaadiyay halkan hotelka gudihiisa dadka ku dhintay ee cadawgu inay dilaan ay awoodeen markay gudaha soo galeen 4 qof meeshay ka dileen oo 59 qof laga badbaadiyay waxaad dareemi kartaan xajmiga ciidamadu shalay 5tii barkii ilaa hadda oo aan joogno 3 amba 9 subaxnimo dagaalkaasaan ku jirnay ciidamada gaashaan waa mahadsan yihiin ilmo godana guushoodu waa gumaadka shacabka gaashaan guusheeduna waa gurmadka shacabka waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dadka shuhadada ee halkan ku dhintay ayagoo gurmad u fidinaya ummadoodan u mahad celiyo wiilashan geesiyaalkan aan u mahad celiyo iyo dhammaan ciidamada Niisa oo aan u kala harin iyo dhammaan ciidamada amniga wasiirka amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo gaaray goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay meel ugu soo wada jeestaan ciribtirka maleeshiyada al-shabaab marka alxamdulillah waxaan mar labaad mar saddexaad rabaa inaan u mahad celiyo hay'adaha amniga iyo sida ay arrintan u soo abjareen waa ku mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan mar walba waxyaabahan oo kale waa u jeedin dadkan ma aha dad diin ku socda dad mabaadiir kale ku socda ma aha waa dad banaystay dhiigga shacabka Soomaaliyeed dadka meeshan ku dhintay waa dad shacab waa dad islaama marka in shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan jihaad in lala gala ayaga in jihaad lagu qaado oo la iska celiyo ay diinta ay ogashahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka hadlay goobta weerar ka dhacay waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ujeedkeedu uu yahay inay niyad jabiyaan horumarka socda iyo in ay dhibaato joogto ah u geystaan dadka shacabka ah 3 bilood ee la soo dhaafay wax qaraxi kama dhicin magaalada Muqdisho waxa ay runtii sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada Niisa iyo kuwa boolisku dadaal aad iyo aad u weyn waxa la fashiliyay oo la qabtay muddada 3 bilood 14 qarax waxaanu leenahay intii dhimatay Allah u naxariisto gacan ka xaq daran oo argagixisaaba dishay intii dhaawacanna Ilaahay ha bogsiyo gacan ka xaq daran oo argagixisaaba dhaawacday dawladda Soomaaliyeed oo u dadaali doonta dhaawacyada maragtay xun in ay geyso cusbitaallo wixii aan dalka waxba looga qaban karin dibadda inay geyso Nuur Saciid Taal SNTV